Effects of sleep deprivation Saameynta hurdo la'aanta. Haddii aad weligaa habeen aadan seexan oo aad teelka rogrogtay amaba aad sariirta dusheeda adiga oo isku gedgedinaya uu waagu kugu baryay, waad garan kartaa sida ay kugu bilaabatay maalintii xigtay. Daal, madax xanuun, xanaaq iyo halaaqo ayaad ku qaadatay. Balse in aadan habeenkii seexan ugu yaraan 6 saacadood waxaa ka dhalan kara wax ka badan xanaaq iyo daal, waana caafimaadkaaga oo ay wax gaaraan. Qofka waxaa loogu talagalay in uu hurdo habeenkii 7 ilaa 9 saacadood oo xiriir ah. Haddii ay hurdadu kugu yaraato, waxaa hoos u dhacaya awooddaada maskaxeed, waxaana khatar weyn wajahaya badqabka jireed ee aad leedahay. Saynisku waxa uu hurdo la'aanta iyo hurdo yarida la xiriiriyaa cudurro fara badan. Haddaba, waxaan halkan kugu soo gudbinaynaa ilaa iyo 6 ka mid ah saameynta caafimaad darri ee ay hurdo yarida iyo hurdo la'aantuba kugu keeni karaan. Waa midda koowaade, hurdo yaridu waxa ay dhibaatada koowaad u geysataa maskaxda oo ah mid ka mid ah xubnaha ugu muhiimsan jirkeena, waxaana ka dhasha in ay yaraadaan xusuusta iyo dulqaadka, waxaana kugu adkaanaya barashada wax cusub haddii aad tahay arday, iyo weliba diiradda saaridda oo loo yaqaan focus ama concentration. Haddii ay hurdo yaridu waqti dheer jirtana, waxaad yeelan kartaa calaamadda la yiraahdo hallucinations oo ah in aad aragto ama maqasho wax aan jirin oo kaligaa ah. Haddii uu qofku qabay cudurrada dhimirka ah sida cudurka bipolar-ka, waxay hurdo yaridu ku kicisaa cudurkii uu hore u qabay. Waa saameynta labaade, hurdadu waxa ay jidhka ka caawisaa in uu helo waqti ku filan oo uu ku nasto, ugana nasto shaqadii adkayd ee uu hayay, ugana bogsado dhibaatadii ka soo gaartay. Si gooni ah wadnaha iyo xididdada cardiovascular system. Haddii ay hurdadu kugu yaraato, waxaad halis ugu jirtaa wadne xanuun iyo cudurka loo yaqaan faliga ama stroke. Haddii aan u gudubno saameynta saddexaad, hurdo yaridu waxa ay khalkhal ku ridaa isu dheelitirnaanta dheecaannada dheefshiidka, si khaas ah dheecaannada ama hormoonska loo yaqaan leptin iyo ghrelin. Leptinku waxa uu koontaroolaa dheregta, halka ghrelinkuna la soo daayo marka aad baahato. Marka ay hurdadu kugu yaraato, waxaa la yareeyaa dheecaanka leptin, waxaana bata ghrelin, qofkuna waxa uu dareemaa baahi. Waana sababta keenta in dadka hurdada ku yar tahay ay habeenkii xilli dambe wax cunaan oo ay jikada ku laabtaan, taasi oo keenta cayil iyo buurnaan. Sidoo kale, hurdo yarida waxa ay keentaa in uu yaraado dheecaanka insulinka, waxa uuna qofku khatar ugu jiraa cudurka macaanka ama diabetic mellitus. Saameynta afaraad ayaa waxa ay noqonaysaa guud ahaan dheecaannada jidhka waxa ay ku xiran yihiin hurdada. Markii ay hurdada yaraato, waxaa ku yimaada isbeddel. Tusaale, dheecaanka testosterone loo yaqaan si loo soo daayo, waxa uu u baahan yahay in aad 3 saacadood oo xiriir ah huruddo. Haddii hurdadu yaraato, isaguna waa uu la yaraanayaa. Hurdo yarida waxay waxyeeleysaa habdhiska neefsashada, taasina waa qodobka shanaade. Haddii aan si qoto dheer u fiirino, dadka hurdo yarida haysaahi waxa ay dhibaato kala kulmaan infekshannada soo laalaabta ee ku dhaca habdhiska neef-mareenka. Ugu dambeynna, qodobka 6aad ayaa wuxuu noqonayaa hurdo yaridu waxa ay hoos u dhigtaa difaaca jidhka, waxaana ay yareysaa walxaha uu jidhku soo sii daayo xilliga hurdada, kuwaas oo ay ka mid yihiin antibodies and cytokines oo ah walxo la diriro jeermis-dhaliyeyaasha sida bakteeriyada
iyo fayruusyada. Ugu dambeyn, sidee uga hortagi kartaa? Si aad uga hortagto hurdo yarida iyo hurdo la'aanta ama sleep deprivation and insomnia, waxaad u baahan tahay in aad qaaddo tallaabooyinkan soo socda. Kow, yaree hurdada maalintii aad seexatid, khaasatan wixii ka dambeeya salaadda casir. Labo, ka fogow cabidda kafeega duhurkii kadib. Saddex, sariirta tag saacadaha cayiman ee aad seexato. Afar, soo toos isla waqti cayiman oo aad yeelato. Lix, waqtiga hurdada ka hor tag hal saac sariirta, kuna sii akhri wax ka mid ah waxyaalaha aad jeceshahay. Qodobka ku xigana, iska fogee taleefanka xilliga hurdada. Ugu dambeynna, maalin kasta samee jimicsi ugu yaraan 15 daqiiqo.